munaasabadani oo ahayd daahfurka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiiro taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay gudoomiyaasha baarlamaanada Soomaaliya iyo Djibouti ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ururada haweenka dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waan ogtiin dhamaantiin magaalada Muqdisho burburka soo gaaray baaxadiisu inta uu leeyahay haddii aan si midnimo loo wajahina la gaari maayo meesha aanu socono oo aan hore u sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xamuud ayaa dhankiisa u hambaliyay dhigiisa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane madaxweyne waxaan rabaa in halkan aan ka hambaliyo dadaalka kala go'an lahayn ee aad ugu jirtaan baarlamaan iyo xukuumadba dhamaystirkii iyo adeegga qaranka Soomaaliya haddii aan nahay reer Djibouti waxa aan aaminsanahay in Soomaaliya ay cagta saartay tan iyo carta dabada dowladnimo ee ay ku rabto gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay kalfadhigii la soo dhaafay wixii qabsoomay iyo jihaynta kalfadhiga markaasi furmaya kalfadhigii shanaad ee aanu soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhi aad u shaqo badan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kalfadhigiisii shanaad wuxuu ansixiyay 5 sharci wuxuuna akhrinta koowaad iyo labaad mariyay 14 hindise sharciyeed furitaanka kalfadhigan wadajirkii waa mid ka duwan kalfadhiyadii gaargaarka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka u qabsoomi jiray taasoo ku timid dadaal fara badan oo ay labada guddoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku bixiyeen in la gaaro isfaham si loogu adeego dalka iyo dadka Soomaaliyeed mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin muddadii uu shaqaynayay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu qabsoomay hawlo fara badan ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo xiray munaasabada waxa uu sheegay in uu furan yahay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya cid kasta oo soo taagta dib u yeelidda qaranimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeena ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri ma jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta mudanayaal marwooyin waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo bisha tahay Oktoobar 9 2019 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختار عبدي آذان تلفزيون KSBC مقديشو.